xaflad ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda isboortiga Soomaaliyeed ee wadankan UK ayaa waxa lagu soo dhaweeyay Marwo Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan. xafladaasi ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano waxgarad iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska. xafladaasi ayaa inta badan waxa looga hadlayay waxqabadkii Marwo Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan. inta badan dadka waxa ay uga mahadceliyeen howlkarnimadeedii iyo waxqabadkeedii. hadaladoodiina waxa kamid ahaa sida tan: arrinta aan idinku talagalnay aad bay u weyneed xoogaa yar maxaana dhex galay tacsiyo isdaba socoto laba qofood oo aad agteena ugu qiimo badnaa Cabdiqaadir Xuseen Bootaan isoo maray iyo Daahir Gacmi. labadaas nina meeshaas tacsidaas la gashay. haddii arrintaas maanta ay jiri lahayn wasiiradda xildhibaanada iyo dadka la socdo si gaar ah oo intaan ka weyn bahda isboortiska intaan u jeedan kaliya ma aha runtii arrinta aad noo muujiseen iyo soo dhaweynta caawadna soo dhaweyseen wax weyn nala tahay annaguna sidaas oo kaleeto insha Allah taala waxaan jecelnahay inaan idin matalan adinka xildhibaanku waa wakiil bahda isboortiga waxaan rabaa inaan nala qaadaan Soomaaliya suuragal kama aha konton dawladooda caalamo leh oo kulligood qaranimada lidku ah mid kasta markii la soo abuuro wuxuu toos u ataagaya qarankii Soomaaliya waxay wada lahayd. su'aasha dhabta waxay tahay Soomaaliya inta badan inay fahmaan danta orgiga oo hinta ka weyn qofka wax laga sheegayo dana gaar ah laga leeyahay dadkeenu iyo bulshooyinta inay fahmaan waay reportka la aruurinayna waxa laga soo aruuriyaa niman dhalinyaro Soomaaliyeed ama nacayb ama reer ama baashan qabaliyada xumaataha ku jirtay Nairobi laga soo aruurshaa nin baashaah la lacaba report laga qaadaa monitor groupka lagu daraa Soomaalida dibadda joogta diaspora waxay ku leeyihiin monitor groupka waxay tiri monitor group maxaa adiga ahayd. waxaan idinka codsanayaa in fikradaasi haday wanaagsan tahay igu taageertaan oo aanu hirgelino si monitoring groupna aan uga baxno naftirkeeda maxaa yeelay annaga in la dhaleeceeyo in la yiraahdo in karbonana laga daba qaato xataa naftirkeeda waxa noo keenaya gacan horsiga. farmaajo u kacay Soomaaliya burusha la marshay burushkaas waxa lagu marshay waxay ahayd maalintii oo yiri oo meeshii laga raacay iyo meeshii Fawziye laga raacay labadaba in rabaa inaan taabto maalintii oo yiri hay'adaha samafalku waa inay yimaadaan magaalada Muqdisho. farmaajo waxa uu aaday waa intaas. Fawziye waxay aaday Soomaaliya waa isku filanta sida la sheegay dalkeena hadaanan annaga u kicin oo wax u qabanin cid wax noo qabanaysa malaha annaga hadaanan wax u qaban for example dadka sportiga waxaan ku farxinaa wasaaradda sportiga wasiir Khalid wuu dhisay xafladu waxa weeyaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan in la tuso in wixii ay qabatay loo og yahay oo aan ku tusno si aan beelaysnayn oo gobolaysnayn oo qabiilaysnayn ee si Soomaalinimo ah aynu u tusno. ugu dambeyntii Marwo Fawziye ayaa waxa ay uga mahadcelisay jaaliyadii Soomaaliyeed ee halkaas isugu timid sida sharafta leh iyo qiimaha ay u soo dhaweeyeen. waxaan ku darayaa diasporada waa loo han weyn yahay aniguba diasporana ahaa oo shalaan idinka tagay dalna waxaa dhisi kara uun diaspora markuu burburo waliba khaasatan dalalka iminka ay ka mid yihiin Eritrea iyo sidii loo yidhi iyo Rwanda iyo kulli kuwii dagaalada soo galay Liberia iyo waa diasporada waxaa dhisay way iska jirtaa mar in dadkii aan dagaalada ka bixin dhulka ay ka yar cawdaan diasporada oo ama shaqooyinka ha noqoto ama opportunities ka arkayaan TV-yada lacagaha la soo dirayo iyo waxyaalo fara badan baa xasaasiyad mar way dhacdaa laakiin in loo dhigo dhag jalaqsiya maaha dalka way noo baahan yahay sida loo yiri waa dal way isku filannahay dhan kastaba ha noqotay sidoo sheegay Macallin Cabdalle wadankeenu waa qani haddaynan inagu ka faa'iideynin oo aynaan maal gashana dad kala maal gashanaya shaqaale un baynu ku dambaynaynaa. Yuusuf Garabay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London.